Korano vedjore, cilësohet si një hap I parë praktik. Assalaamu calaykum. Caalamka oo idil waxaa hal mar lagu baraarugay 12 nin ee qaaska u ah madaxweynaha Kuuriya Waqooyi ee Kim Jong-un, kuwaasi oo garab yaacaya gaarigiisa xilli uu ku sugnaa waddanka Singapore. Raggaasi maxay yihiin? Maxayse qabtaan? Ooshoodu maxay tahay? Maxayse adduunka oo idil u hadalhayaan raggani? dhammaan waxaasi oo idil oo xog ah waxaad ku ogaan doontiin barnaamijkeena maanta, balse daawade ha naga hilmaamin inaad subscribe dhahdo channelkeena cusub, like-na saarto videoga, hadduu ku qanciyo siina share garayso siduu dad badan u gaaro, maadaama uu yahay channelkeena mid cusub oo soo koraya. Waxaan doonaynaa inaan helno dad nagu soo biira oo nana dhiirigeliya. Mahadsanid. raggaasi aad arkaysaan waxaa saaran mas'uuliyad aad u weyn oo la xiriirto dhinaca amniga. Dowladda Kuuriya Waqooyi waxaa diyaar u tahay inay wax walba u samayso madaxweynaheeda si ay u ilaaliyaan dhibaatooyinka amni darro ee soo gaaro madaxweynayaasha dalalka caalamka oo kale, maadaama marar badan ay dhacday in la togto madaxweyne waddan kale. Majal Midan waa falanqeeya arrimaha amniga ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay kooxdaasi ragga ah waxa ay qabtaan. Inta uu Kim ku sugan yahay gudaha waddankiisa Kuuriya Waqooyi, ilaaladiisu waxay sameeyaan 3 saf oo hareerihiisa ah, halka ay ilaalada qaarkood garab ordayaan gaariga madaxweynaha, kuwo kalena waxay ku dhex jiraan dadka shacabka ee lugeynaya. Dhammaantood waxay ka tirsan yihiin askartani xarunta xisbiga dhexe ee talada haya oo si rasmi ah lagu yaqaano xafiiska mintidiinta. Waxay isku dhirir yihiin dhammaan askartani madaxweynaha. Ilaalada madaxweynaha Kuuriya Waqooyi waxaa markii hore laga soo xulay milatariga dalkaasi. Shuruudo gaar ah ayaa lagu soo qaatay, waxaana ka mid ah dhirirkooda waa inay la dhirir ekaadaan hogaamiyahooda, sidoo kale waa in aragtidoodu ay noqoto mid aad heer u sareysa, waa inay xirfad sare u leeyihiin toogashada, dagaalka, ladginta, karatayga iyo feerka. Mid kasta oo ka mid ah raggani marka la qorayay waxaa marka hore lasoo ogaaday qoyskiisa iyo jiilalkii ka horeeyay isaga ay isku ehelka ahaayeen. In badan oo ka mid ah ciidanka mintidiinta waxay qus ahaan xiriir dhalasho wadaag yihiin Kim Jong-un ama waxay kasoo jeedaan beelaha waaweyn ee dega Kuuriyada Waqooyi. Marka la aqbalo inay ka mid noqdaan ilaalada ciidanka madaxweynaha, awood uma lahan inay diidaan wax walba, waxaana loo sameeyaa tababar aad u heer sareeya. Ilaaladani waxaa la baraa xirfado qaas ah. Tababarkooda waxaa qayb ka ah in la sii xoojiyo xirfadooda isticmaalka hubka iyo shiishka iyo dagaalka gacanta iyo lugta. Ilaalada ku hareeraysan madaxweynaha waxay leeyihiin aragti gaaraysa 360 digrii, waxayna arki karaan ficilada ay sameynayaan dadka ka fog goobta uu hogaamiyaha ku sugan yahay. Hortiisa waxaa madaxweynaha hor socda 3 ilaa 5 ka mid ah ilaaladani oo uu ku jiro taliyaha ciidanka mintidiinta. Garbihiisa waxaa hor socda 4 ama 6 waardiye oo 2 ama 3 ka mid ah ay ka xigaan dhinaca midig. 4 waardiye ama 5 kale ayaa gadaal ka socda madaxweynaha. Ilaaladani waxay isla qaabkaasi u waardiyeeyaan gaariga madaxweynaha Kim Jong-un uu ku jiro. Marka uu madaxweynaha goob ku sugan yahay, ilaalada ayaa ah dadka kaliya ee iyagoo aan dharka ciidanka wadanin loo ogol yahay inay hub haystaan. Inta badan hubkaasi waa midka sida darandooriga u dhaca. Inkastoo ay hub wataan, shaqadooda ugu badan ilaalo ahaan waa in ay adeegsadaan khibradda ay u leeyihiin eegitaanka dhaqdhaqaaqa dadka ku agdhow Kim Jong-un iyo inay la tacaalaan khatar walba oo soo wajahda iyagoo isticmaalaya gacmahooda iyo jirkooda intiisa kale. Yacni dadkani hub uma baahna sida ay sheegayaan. Markii uu noolaa Kim Jong-un aabihii waxaa isaga iyo saraakiishiisa kale ee la socota ilaalin jiray hal qof oo kaliya, balse wiilkiisa Kim Jong-un waxa uu shaqaaleysiistay ilaalo aad ugu badan kuwii aabihiis. Dhammaantood waxay xiran yihiin suudadka reer galbeedka sida lagu arkay markii ay ku sugnaayeen Singapore. Darawalka gaariga u kaxeeya Kim Jong-un waxaa gacmaha ugu jira qalab ka ilaalinaya inuu ka farbaxsado steerinka gaariga. Sidoo kale darawalka Kim Jong-un waxaa dhagaha ugu jira qalab isgaarsiin ah oo ay iskula hadlaan ilaalada Kim Jong-un. Kim Jong-un wuxuu ka mid yahay madaxweynayaasha ugu ilaalada adag adduunka. Ciidanka loo yaqaano mintidiinta waxay ka kooban yihiin 200 ilaa 300 oo askari ah sida lagu qiyaasay. Kala bar ka mid ah waa ilaalo, inta kalena waxay isugu jiraan darawaliin iyo farsamayaqaano. Ragga waardiyeeya madaxweynaha intooda badan waxay haystaan khibrad dheer, halka qaarkood ayba soo shaqaynayeen muddo ilaa 10 sano ah. Waxyaabaha yaabka leh ee lagu arkay waxaa ka mid ah in ay wataan cabitaanadooda iyo cuntadooda iyo sigaarkoodaba intaba. Mar
uu booqasho ku tagay madaxweyne Kim Jong-un waddanka Singapore ayaa waxaa la arkayay in ay la socdeen 3 diyaaradood, waxaana 3daas diyaaradood saarnaa ilaaladiisa iyo dhaqaatiir. Ragga iyo dumarka la socday madaxweynaha waxa ay sameynayeen wax walba oo ku saabsan madaxweynaha, sida maamulistiisa, telefoonada uu ku hadlayo iyo kombiyuutarada uu isticmaalayo. Waxaa intaas sii dheer in ay haysteen dhammaan cabitaanada iyo raashinka iyo sigaar ku filan iyaga iyo madaxweynaha inta uu waddankaasi joogo. Waxa ay sidoo kale wateen daawooyinka loo baahan karayay oo idil iyo dhaqaatiir heegan ah. Qof walba oo doonaya inuu arko goobta uu madaxweynaha ku sugan yahay waxa ka soo horeeyay ilaaladiisa oo la socday dhaqdhaqaaq kasta. Waardiyeenta noocaasi oo kale ah weligeed horey looguma arkin caalamka, sida lagu sheegay baaritaanadii lasoo sameeyey kadib booqashadii Kim Jong-un ee Singapore. Adigu daawade, maxaad ka aaminsan tahay Kim Jong-un? Nin noocee ah? Fadlan noogu reeb commentiga. Intaadan ka bixin, mar labaad daawade, waxaan kaa codsanaynaa haddii videogani ka heshay ha naga hilmaamin inaad like saarto, iyo in videogani dad badan u gaaro waa inaad share dhahdaa. Mahadsanid. Sidaa iyo amaano Allah.